Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad. Soomaaliya dagaal dambe iyo colaad dambe uma baahna. Waxaan leeyahay arrimaha tukara ka socda ee dadka Soomaaliyeed ee dhiigooda bilaa macnaha ku daadanayo hala joojiyo. hala joojiyo. waxa ku dhimanay wiil Soomaaliyeed, waxa ku dhaawacmay wiil Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa. hala joojiyo. Somaliland waa dad walaalaheena duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyay. dawladdan diyaar waxay u tahay inay wada hadalladii soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fariisto. Soomaali kalama maaranto. waa dad walaalo ah, waa dad isku dad ah, waa dad wax walba wadaaga. inaan ummadda Soomaali isku soo celinno oo aan isku soo dunno oo aan walaalino yaa qof walba oo Soomaali ah iyo mas'uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay. aniga ugu horeeya oo madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed iyo dawladdeeda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wada hadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnana walaalahayn aan ku gelino. maxaa yeelay waa gacan naga maqan, waa garab naga maqan weeye. maanta waxaad haystaan dawlad ay adduunka u aragto inay tahay dawlad wanaagsan. maanta waxaad haystaan dawlad idin keenaysa sharafkiina iyo sumcadiina ilaalinaysa, idin keenaysa magac wanaagsan ayaad haysataan. waxaa la doonayaa marka inaad daba gashaan oo gacan siisaan oo aad la shaqaysaan dawladdiinna. waxaa jira fikrado kala duwan oo la doonaya shacabka Soomaaliyeed inay dhinac ka qaataan. bacdama Soomaaliya ay muddo dhib ku soo jirtay, xaalado adagan ku jirnay, ciidamadeennu ay aad u dhisnayn, diyaarado ayna lahayn, maraakiib ayna lahayn, dabaabado ayna lahayn. waxaa loo haystaa Soomaali inay jilicsan tahay, waxaa loo haystaa Soomaali inay tabar daran tahay. Soomaali ma tabar darna inta shacabkeedu uu garab taagan yahay. awoodda shacabka iska leh. dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed inay qalbi jabiyaan, dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdooda inay iska hor keenaan, macnaheedu waxa weeye dawlad la'aan weeye, waa nidaam la'aan, waa sharci la'aan. waxaa lidinka rabaa inta ciidamada Soomaaliyeed ee meeshii ay ahaayeen 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ay gaarayaan. waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay gacan siiyaan ciidankooda oo garab u noqdaan oo ay taageeraan.